weeraryahanno la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa axadii gubay laba baabuur oo u rarnaa shirkado ganacsi oo marayay meel ku dhow xerada Hong Kong iyo CO ee ku taala ismaamulka Lamu ee dalkani Kenya. Wakiilka gobolka Lamu Irungu Macharia ayaa sheegay in kooxdii weerartay ay ku tuureen waxyaabaha qarxa mid ka mid ah gawaarida xamuulka ah taasoo sababay in gawaaridu gubato. Shaqaalihii la socday gawaarida ayaa ka baxsaday falka kadib markii ay ka boodeen gaariga ka hor inta aanu dhibaatada soo gaarin. Mr. Macharia waxa uu sheegay in ilaa iyo 4 nin oo aad u huweysan oo looga shakisan yahay in Al-Shabaab ay fuliyeen weerarkan gaadmada kadibna ay u carareen keenta u dhow goobta. Dhacdadani ayaa hakisay gaadiidka wadada marayay muddo ku dhow 1 saac iyadoona askar ka tirsan ciidamada difaaca Kenya KDF iyo booliska ay goobta gaareen. Mr. Emmanuel waxa uu sheegay weerarkan inuu ahaa mid lagu cabsi gelinayo shaqaalaha dhismaha si ay ugu tanaasulaan mashruuca. Weeraradani ayaa yimid 3 toddobaad kadib markii laamaha ammaanka ay iska caabiyeen ku dhawaad 50 nin oo hubeysan oo si weyn looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulada Bandanguo oo ku taal Lamu.